Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibadeyda qiimaha leh, waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad qabtaan. Muuqaalkan inta uu socdo, waxaan kusoo qaadan doonaa cashiro bilow ah oo ku saabsan aasaaska barnaamijka Adobe Photoshop, taasi oo kuu noqon doonta bilow dhammaystiran haddaad si mug leh ula socoto. Photoshop waa barnaamijka ugu caansan caalamka ee lagu saxo laguna hagaajiyo sawirrada haddaad tahay sawir qaade ama artiste. Sidoo kale haddii aad tahay naqshadeeye, waa muhiim inaad wax badan ka taqaano barnaamijka Adobe Photoshop. Si aan halkan saaxiibo ugu wada noqono, fadlan rukumo channelkan oo subscribe inoo saar, laagtuna waa noo dhiirigelin. Wixii aragti ah qaybta comment inoogu reeb. Sidoo kale waxaan idinku soo dhaweynayaa inaan ku saaxiibno akoonnada aan ku leeyahay baraha bulshada sida Facebook, Instagram iyo Twitter. Haddii aad hore u isticmaashay Adobe Photoshop, waa si wanaagsan waan isla jaan qaadi karnaa. Haddii aadan horey u isticmaalin ama uu kombiyuutarkaaga kugu jirin, dhib ma lahan, waxaad kala soo degaysaa browserka ayaan soo kicinaynaa. Waxaad searching ku qoraysaa get into PC, then website-kan ayuu ku keenayaa. Then meeshan oo searching-ka ah ayaa waxaad ku qoraysaa Photoshop CC, then okay ayaa leedahay. Marka aad ku qortid, waxaad raadsanaysaa version-ka aad u baahan tahay. Tusaale ahaan oo kale Adobe Photoshop CC 2018 ilaa 19 version ah ayaa la soo degaysaa, ayaa ku dhufanaysaa. Qaybtan hoose ayaa ugu muhiimsan. Qaybtan hoose ayaad imaanaysaa. Meeshan ay ku qoran tahay download 32-bit ama 64-bit, labadaas mid ayaad dooranaysaa. Waxayna ku xiran tahay hadda kombiyuutarkaaga version-ka uu qaabili karo. Haddii 64-bit uu qaabili karo, maxaa fiican inaad kana soo degtid. Then qaybtan password-ka ah, hadhow password uu ku weydiin doonaa. Password-kan waxaa ku ah 123 ku ah. Markaa la soo degtid oo download-ka ku dhamaystirmo, waxaan soo kicinaynaa Adobe Photoshop. Marka Adobe Photoshop soo kicaysid, waa thumbnail-kiisa noocan ayuu ekaan doonaa haddii aad hore wax u isticmaashay. Haddaadan u isticmaalin, meeshan faaruq ayay ku noqon doontaa. Wax macno weyn ma ahan oo ha isku sii mashquulin. Just kaliya waxaa fahantaa markaa rabtid inaad gudaha u gashid, laba qaab ayaa loo galaa. Qaybtan open-ka ahna waa laga galaa oo waxaad soo gelin kartaa kombiyuutarada fileska aad u baahan tahay inaad kusoo furtid. Tusaale ahaan haddaad sawir u baahan tahay iyo haddii file PSD ama Photoshop ah haddii aad rabtid inaad soo gelisid. Qaab kale waxaa jiro oo aad gudaha ula soo geli kartid oo ah inaad file cusub abuurtid. Halkan ayaad click ku leedahay, then meeshan ayaad imaanaysaa. Markaan halkan timaadid, qaybtan kor waxaad ku qoranaysaa magaca ama title-ka ama ciwaanka aad rabtid inuu wax ku design garaysid. Tusaale ahaan kale waxaa leedahay my post design. Markaad sidaas dhahdo, qaybtan ayaad soo furaysaa. Option badan ayaa jiro. Haddii aad pixel dooranaysid, haddii aad inches dooranaysid, haddii aad centimeter dooranaysid iyo millimeter wixii la mid ah. Haddii anaga centimeter aan dooranaynaa maadaama sawir ahaan aan u isticmaalayno oo waana tijaabo, wax tijaabo ah waaye. Size-ka hadba size-ka adiga aad rabtid aad gashanaynaa. Tusaale ahaan kale waxaa leenahay 1080. Halkan waxaan gelinaynaa 1350. Resolution-ka waxaa ka dhiganaysaa 300 mar walba, laakiin waxaa ka dhigan kartaa 72 iyo wixii la mid ah ama waxa aad rabtid. Qaybtan RGB-ga markaa Photoshop joogtid waxaa la doortaa RGB, laakiin markaa Illustrator iyo InDesign aad joogtid CMYK ayaa la doortaa. Hadda anaga waxaan dooranaynaa RGB ayaa dooranaynaa. Background-kan wide inuu yahay, magaciina waa inoo ku qoran yahay. Waxaan leenahay create. Hadda waxaan sidaa kusoo sameynay document. Waxaan rajaynayaa qaybtaas hore inaan isla fahanay. Markaad gudaha usoo gashid Photoshop-ka, waxaad arkaysaa workplace oo noocan oo kale ah. Qaybtan cadaanka ah hadda aan soo abuurnay waa canvas loo yaqaanaa, qaybta ugu muhiimsan. Waxaa soo labayso layer banner-ka oo qaybtan waxaa loo yaqaanaa dhanka midig ka soo qaban layer banner. Marka qaybtan ku dhufan oo kale waxaa inoo soo baxayso layerka background-ka hadda inoo samaysan. Tusaale ahaan oo kale marka aan looga ka qaado oo aan dhaho create new layer, mid labaad, mid saddexaad aan sameynaa. Macnaha qaybta waxaa laga sameeyaa layerada laga sameeyaa. Haddii aan ayaga waxyar dulmar ku sameyno, qaybtan kale ku xigto journalist waaye. Waxaa kugu keydsan kalarada iyo noocyadooda kala duwan. Qaybtan path waxaa loogu talagalay
as maxaa la lahaa inuu shape ahaan u sameynin. Shapeka wuxuu yahay wuxuu ka kooban yahay stroke iyo maxaa la lahaa iyo fill, laakiin pathku waa stroke oo laakiin aan muuqanaynin waayo oo aan shape ahayn. Propertieska waxaad ka helaysaa wax walba oo aad u baahan tahay layerkaas aad ku sameyn lahayd. Adjustmentiga waa waxyaalaha aad ku qurxin tusaalahan oo kale markaad sawir edit gareynaysid sidoo kaleete markaa isticmaalaysid waaye, iyo library. Qaybtan ugu koreyso oo colorka ah waxaa kugu keydsan kalarada tusaalahan oo kale marka aad rabtid shape oo rectangular ah inaad kalaradiisa bedeshid waxaa sameynaysaa waxaa imaanaynaa layer imaanaynaa double click ku leenahay hadda ujeedaa kalarada meesha aad ka maamuli lahayd waaye. Sidoo kalena halkan waa ka bedeli kartaa. Qaybtan waa colors waaye. Qaybtan waa switcheska waxaa kugu diyaarsan kalarada noocyo kala duwan. Switcheska marka wuxuu ka kooban yahay RGB oo bilowgaa soo aragnay, CMYK oo sidoo kale aan soo aragnay, iyo grayscale iyo pastel iyo lighting. RGB-ga haddaan mar furno waxaa inoogu jiro tusaalahan oo kale redkaan dooranayna waa iftiin zaid yellow markaan dooro iftiin zaid, macnaha RGB-ga kalaradiisa waa kalar more lighting zaid u iftiimaa waaye. Laakiin CMYK-ga waa kalaro oo indhaha soo jiidan karo, dareemi kartaa laba farqi u dhaxaysa. Grayscale-kana waa kalarada greyga ah oo aad taqaan ama Soomaalida ay tiraahdo dameeriga. Qaybta gradient-ga waxaa la lahaa kalaro la isku geeyey tusaalahan oo kale basal iyo waxaa la isku geynayaa iyo gaduud oo kale, pink iyo waxaa la isku geynayaa iyo maxaa la lahaa blue kale ay kalarada la isku geeyo waaye oo noocyo kala duwan. Qaybtan pattern aa lahaa waxaa la lahaa shiibo badan oo la isku geeyey oo hal shape laga dhigo kale. Hadda tusaalahan oo kale shapekan oo greyga inoo ah markaan rabno inaan qaab oo aan ka dhigno geed oo kale saan ka dhiganaynaa. Isla patternka ku dhex jirnaa qaybtan oo grasska ah markaan furno waxaad arki kartaa noocyo kala duwan oo caleen ah. Caleentan caleen waxa waaye tusaalahan caleen guud oo kale markay tahay markaa kan aad furtid waxaa u maleysaa inay tahay garoon coos oo balooniga loogu talagalay kale. Waxaan leeyahay control T oo ah markaa rabtid inaad transform ku sameysid kadibna waa weyneynaynaa waxaa arkaynaa si noqonayso. Hadda waxaa kuu sawiran coos meel yaal oo kale ma fahamtay. Marka patternka waxyaalaha uu ka caawinayo waa noocaas waxyaalahaas ka mid ah. Haddii aan sidan kusoo laabano okay aan leenahay kan waa iska daleynaa kaliya waxaan igu fahansiinayay layer bannerka waxyaalaha loo isticmaalo. waxaan rajeynaa qaybtan layer bannerka inaan isla fahanay. Waxaa u imaanaynaa qayb dhanka bidix kaasoo qabanayso ayadana waxaa loo yaqaanaa toolbox, ayada waa u imaanaynaa sharaxitaankeeda. Laakiin qaybtan koran waxaa la lahaa menu box ama menu studio aa loo yaqaanaa qaybtan kore. Qaybta kale ka hooseysana waxaa loo yaqaanaa option banner. Haddii aad rabtid inaad sawir hagaajisid ama arts aad sameysid ama illustration aad sameysid whatever aad Photoshop ku isticmaalaysid waa muhiim inaad fahantid qaybtan oo toolboxka. Toolboxka marka aad fahantid wax badan oo waxaa ku baxaayo oo Photoshop ku aadan. hal mar waxaan soo sameysanaynaa shapeka marka aan soo sameyno shapeka marka si aan u move gareyno waxaan rabaa toolkan aan rabaa inaan sharxo. Shapeka marka saa u move gareyno hadda waa move gareynaa ujeedaan saa u move gareyno waxaad u baahan tahay inaad kan doorato. Tusaalahan oo kale waxaad dooranayaa text markaad doorto kama move gareyn shapeka ma dhaqaajin kari. Marka haddii aad u baahan tahay inaad shape dhaqaajisid ama subject aad dhaqaajisid inaad dooratid waaye move toolka. Move toolka laba qayb oo isugu jira waxaa leeyahay qaybtan hoose tagay qaybta hoose waxaa leeyahay right click. Move tool oo hadda ay tusay oo waxyaalaha waxaa lahaa subject lagu move gareeyo iyo artboardka oo ah canvaska qaybtan aan ku shaqeynayno inaad artboard u sameysid. Artboard waa looxad aad ku shaqeynaysid oo kale waaye. Tusaalahan oo kale size-ka bedelayaa
saana ka dhigaa hadday muxuu inuu ahaa vertical hadda waxaa ka dhigay horizontal ama landscape baa ka dhigay Adobe Photoshop CC 2020 wixii ka dambeeyay shirkadda Adobe waxay u sameysay Photoshop maxaa la lahaa more oo artboardyo oo ka dhigin tusaalahan kale qaybtan pluska taabanaya wuxuu ii noqonayaa artboard kale ay sameysanaayeen then qaybtan oo kala plus markaan dhaho kore dhanka midig haddana bidix u taabto macnaha waxaa sameynaysaa more artboard halkii oo canvas ka dhex sameyn kartaa hadda waxaan rajeynayaa inaa fahanteen toolka ugu horeeya oo move toolkii artboardka ama artboardka control Z ayaa leedahay haddii aad rabtid inaad ka wada laabatid oo kale waxaan rajeynayaa qodobkan ku saabsanaa move toolka iyo artboard toolka inaan isla fahanay shaqada lagu qabto iyo shaqada ay ka qabtaan toolkan ku xiga haddii aan isla fiirino oo rectangular mercury toolka iyo elliptical mercury toolka oo isku halkii ah laakiin midna rectangular ayuu selection ku sameeyaa midna elliptical selection wuxuu ku sameeyaa circular selection ku sameeyaa saddexdan tool ee isku xiga ellipticalka iyo maxaa lahaa lash toolka oo focus category ah iyo quick selection kaba saddexdan waxay qabtaan hal shaqo iska agdhow oo ah selectionka ayay sameeyaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin hadba shaqada ama subject ay ka qabanayaan ku kala duwan yihiin tusaalahan kale rectangular mercury toolka markaa rabo inaa wax ku sameeyo ama selection ku sameeyo waxaa leeyahay zoom out qaybtan hoosaa rabaa inaa selection gareeyo waxaa leeyahay control C control V hadda waxaad ujeedaa dhagaa layirkaan imaano waa ujeedaa meeshaan inuu layer cusub inoo sameysmay dan si aan u aragno selectionka aan sameynay waxaan iska qarinaynaa layerka hoose dan hadda waxaa kuu muuqdo ii sheeg in selection aan sameysay marka rectangularka iyo ellipticalkuba selectionka ay sameynayaan waa mid oo direct waaye oo qayb ka mid ah ayaga laguma sameeyo in backgroundka iyo sawirka lagu kala jaro ma lagu sameeyo lash toolka waxaa sameynaysaa keligaa waxaa ku leedahay left right-ka oo muuska then saasaa ugu soo daraagareynaya gacantana kama qaadaysid processkaasaa kusoo wadaysaa ilaa meesha aarda ka keenaysid selectionkaasaa ku sameynaysaa then waxaa leedahay mask marka backgroundka si toos ma ugu wada jarmin laakiin background intiisa kale waa ka jartay intaan kale waa ka jaraynaa dhib malahan laakiin selectionka qaybta uu lash toolka qabto iyo qaabka loo sameeyo ayaa sidaas ah